horumarka dhinaca waxbarashada ah ee laga dareemayo degmada Docol ee gobolka Mudug ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhinacyo kala duwan oo u badan jaaliyada Galmudug ee dalka Britain ay gacan ka geysteen hirgelinta iskuul hoose dhexe oo ay yeelato degmada Docol ee gobolka Mudug. degmada Docol waxay gaalkacyo u jirtaa 40 kiiloomitir waxaana hore uga jiray waxbarasho la'aan aad u liidata isla markaasina caruurta ku dhaqan deegaankaasi iyo kuwa reemiyiga ah ma aysan heli jirin goobo ay wax ku bartaan. hayeeshee hirgelinta iskuulkaasi wax weyn waxa uu ka saaciday in ardaydu ay helaan waxbarasho dhab ah. gudoomiyaha degmada Docol ee dawlad goboleedka Galmudug ahna maamulaha iskuulka hoose dhexe ee degmada Docol macallin Saciid Cali Cumar ayaa Soomaali Channel laga waramay xaaladda waxbarasho ee iskuulkaasi. ardayda markaan ka warramo iyo waxbarashadeeda heer sare marayaan markaan awalse hoos bay jireen macallimiintu waa nagu yar tahay ha yaraatee misaal lacagteeda ma hayno walaalahaas waxaan rajaynaynaa inay aadna waa noola socdaan waan rajaynayaa in wax badan loo soo dhiibaan markaas waxaan rabnaa walaalahaas inaan aad iyo aad ugu mahad celino waxa ay noo soo direen walaabtumo dugsigu waxa uu dugsi hoose dhexe ilaa shanaad buu marahayaa wixii ka koreeyana yani macallin la'aan baa iska gudbinaa gaariyaan gudbinaa ilaa 50 iyo xoogaa gudbinaha kuwa waxa dhiganaya marka dugsi sare dhiganaya Israa'iil bay dhigtaan oo markaa ku jira saasaan iska gudbinay waxaan u gudbinay oo meeshaan u gudbin weyne macallimiinta ugu yar oo aan lacagtooda aan ahayn dugsiga agabkiisa oo qaar uu dhiman yahay dugsiga uu ka dhiman yahay 3 fasal baa wax qalabaysan oo kaas u silaalaya gabdhaha ka la soo dhiiba macallinka lacagtiisa loo soo dhiiba oo walaalaha ah kuwaas salaamaya aad salaamaya. waalidiinta dhalay qaar ka mid ah ardayda dhigata iskuulka hoose dhexe ee degmada Docol ayaa iyaguna ka waramay faa'iidada caruurtoodu ay ku qabaan iskuulkan. magacaygu waa Nasteexa Maxamed anigoo ah guddiga CCda halkan waxaan uga mahad celinayaa G&M gabdhaha fadhigoodu yahay Ingiriiska ee aad noo soo taakuleeyay. iskuulka hoose dhexe ee degmada Docol ayaa ah mid ay dhigtaan caruur fara badan oo ka kala yimid tuulooyinka iyo waliba gudaha xaafadaha degmada Docol ee gobolka Mudug. Axmed Khaliif Geedi, Soomaali Channel, Gaalkacyo.